waxaan rabaa bes inaan hambalyeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya oo ka soo baxay caasimadii iyo xaruntii dawladda federaalka ah ee bilaabay inuu u adeego dawlad goboleedyada dalkani maadaama uu federaal noqday. bangiga dhexe xarumo badan iyo branches badan kuma lahaan jirin dalka intiisa kale. bangiga ganacsiga ee kaydka Soomaaliyeed ayaa ka shaqeyn jiray gobolada iyo degmooyinka qaarkood iyo laakiin bangiga dhexe xarunta muqdisho iyo habeynta arrimaha national monetary system iskeedii waxa uu ka shaqeyn jiray laakiin duruuftu way isbedeshay hadda dalkii nidaamka federaalka ka dhaqan galay in marka adeegii muqdisho la soo dhaweeyo oo dadka loo soo dhaweeyo meelaha u xarumaha ayaa siyaasadda cusub iyo nidaamka federaalkuba ay nafarayaan. marka waa aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa bangiga dhexe horumarka uu sameeyay. sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dawladda Galmudug ee ku guuleysatay iyadoo in ay fududeyso oo ay noqoto dawlad goboleedkii ugu horeeyay ee branchiga bangiga dhexe laga furo. runtii iskama iman bangiga dhexena ma kala jeclaa dawlad goboleedyada dalka meeshii ay amuurtiisu ka fududahay dadkii wada shaqeyn u muujiyo dadkii ay ku soo hormartaa meelaha qaarkood inkastoo ciriiriyaal badan ay ka jiraan haddana dawladda Galmudug waxaan ku hambalyeynayaa aanan ku bogaadinayaa ku dhiirigelinayaa furfurnaanta iyo soo dhaweynta iyo howl dawladeed loo dhaqaaq haddii la yiraahdo arrimaha federaalka iyo arrimaha dawladda dhexe iyo arrimaha qaranka sida ay qaybtooda inay u qaataan mar walba ay ugu taagan yihiin. deegaankan taariikhdiisii hore iyo mid dambaba dagaal inta badan nabadaysan oo ahaa ka badbaaday burburka iyo dhibaatada ay nimankan khawaarijta ay badeen dalka dhan gaar ahaan gobolada iyo degmooyinka dalka iyo dawlad goboleedan afarta si gaar ah waliba Puntland waa xoogaa iyaduna waa ka baxsan waa xasilnayd inta badan iyo dalka qeybihiisa kala duwan oo dhan meelo yar yar oo deegaanada Puntland ka tirsan oo ay wali ku dambeeyaan wax yar yar oo ISIS iyo shabaab iyo dhamaanba waa isku khawaarijta la isku dhahay khawaarijtu ay ku dabooyaan mooyaan. dawlad goboleedka Galmudug shaqadan iyo furfurnaanta iyo qabtay waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in uu furitaanka laanta bangiga dhexe ee laga furay magaalada Dhuusamareeb horumarka Galmudug inay wax weyn ku soo kordhin doonto fududeyn doonto habka dhaqaalaha iyo maamulka maaliyadda iyo arrimaha fiskalka inay aad iyo aad uga fududeyn doonto halkan oo ay u sahli doonto ugu yaraan waa inta ugu yar lacagtii xamar inta lagu shubo xamar laga soo haddana bedelo bangiga ganacsiga loo bedelo bangiga uu ka waxeeyo in ay xamar u baahnaanayn oo halkan ay u taalo lacagtooda immediately markay systemka soo gashaba inay halkan u taalo oo ay access ama ay u dhow yihiin waqti kasta ay isticmaali karaan halkii maalmo kale ay qaadan lahayd ama usbuucyo ama marka qaarkood in xagga xamar laga soo fududay. arrintaasi waa arrin aad iyo aad fursad weyn u ah dawladdan Galmudug. dawladaha kale ee dalkana sidoo kale ayaguna inay sidaan oo kale kuna daysadaan dadajiyana waxyaabaha yar yar ee u dhiman qaar already waa laga bilaabay soo dhaweyn fiican ayagana ay muujiyeen iyo dadaal gabagabo ka maraya ayaduna maalmaha kamid oo ku soo xigon dheerayn inaan sidaan oo kale aan ugu dabaaldegto una hambalyeyno ayaan sugaynaa haddii alla yiraahdo. intaas kadib mar kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dadka reer Galmudug iyo dawladooda hogaankooda sida ay ugu heelan yihiin in dalka laga xoreeyo khawaarijta meelaha yar yarka oo dawlad goboleedkan Galmudug ka tirsan ay ku hareen iyo dalka intiisa kaleba. faceki koobaad la dagaalanka khawaarijta waa gabagabo maraya. Galmudugna meeshii albaabkii la soo xirayay meeshii u dambeysay albaabka laga soo oodayay iyaduna inay noqotana waa fursad kale oo taariikhi ah iyadana insha Allah wayna noqonaysaa haddii alla yiraahdo. waxaan rabaa halkan uga jeedinayaa baaq dhammaan dawlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan
qodobka koowaad horta inay u istaagaan xoreynta dalka oo wax walba miftaax u ah dalka in khawaarijta laga xoreeyo oo dal madax bannaan oo khawaarijta ka madax bannaan oo dowladdiisa dhexe iyo dowladooda dhexe iyo dowladahooda muxuu ahay deegaaneed keer deegaaneed ee dowlad goboleedyadu ay ka fiiriyaan la xisaabtamaan markaas hadda cudurdaar yaraa la haystaa lagu gabado waxa le meeshii khawaarijtii haysatee managa wax gaarsiin karnaa la yiraa haddii laakiin shacabka Soomaaliyeed aad khawaarijta iska saartaan cudurdaar heli mayso dowlad goboleedka cudurdaar heli ma dowladda dhexna heli mayso oo sabab oo gaari waayo adeegyadii ay u baahnayeen dadkaas intii mar walba la kari karo oo mar walba la gaari karo laakiin sida hadda shibaa maxaa deegaano dhan oo aan muxuu ahay muddo muxuu ahay 10 sano ah aan iskuul laga furin laga dhiganin oo aan dugsi quraan laga dhiganin oo muxuu ahay bar caafimaad oo caruurta lagu talaalo aan lahayn oo hooyada muxuu ahaa xaamilada meel ay ku umusho aan lahayn oo biyo nadiif oo lacab aan lahayn qaarkood ay barkada iyo biyo la soo dhaamiyay iyo ay muxuu ahaa waxaasi waa nolol qadiima oo aad iyo aad aanay fursadana duruufta nimankan khawaarijta ay abuureen aan baday mooyaane nama badin ilaahay nama badin oo dal nimca iyo khayr iyo wanaag ayuuna dajiyay dalkeena nama badin oo khayraadkaas iyo wanaagaas aan sheegayno leeyahay khawaarijta ayaana baday oo sababta u tahayna annaga dadkeena maantana waan aragnay dadku markay dhahaan mayadaas dadku ay yiraahdeen inay ku soo dhamaanayso oo cid dhaafi kartaa aanay jirin shalay haddii dowlad dhib badan dalkan ay timidna dadka maya yiri maantana khawaarijtaas argagaxa iyo cabsigelinta iyo gumaadka ku haysa dadkiya maya yiri marka dadku ha fahmeen dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogaan awoodda ay leeyihiin إذا الشعب يوم أراد الحياة سو ما هي محوها شعر محوها نكي عرب كاي أوتري يعني هداد قان جارتو ضدكو هدي قان جاران ما فرق قف معه ضدكو هدي أنت تشدار قان جاران أو أي رادان نبكي عسك قادم والله بعد نبكي إنه قادميو هدي أي قان جاران هدنا كو جاران وناقص أن جارنو أن هيكسننا والله بعد إنه محن كورا هاي هيكسنا يعني أي جار يعني حرمنا dadka reer galmudug eeda badan ay qabaan oo taariikhdii dhaweyd ma tii hore qadiimkeed xorriyadoon iyo dawlad dhisid iyo magac hore waa u leeyihiin laakiin taariikhdii dambe dhaweydna eeda kale qabaan ayagu isuma haystaan laakiin dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah waxaan rajaynaynaa ammaan badanna inaad muxuu ahay kasbataan oo aad dhamaystirtaan wax yarka ee khawaarijta dalka ku haray walaalaha kale Soomaaliyeed ee deegaanadooda wali ay ku harsan yihiin hadba intii aad kartaan iyo inta ayagu idinka codsadaan inaad garab siisaan oo garab istaagtaan oo maxaan ku iraahday dalkii khawaarijta laga xoreeyo mar kale waxaan bogaadinayaa hambalyaynayaa hoggaanka gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo madaxda bangiga dhexe ee Soomaaliya bangiga dhexe Soomaaliya wuu furnaa muddo dheer wuu furnaa gaar ahaan intii haddaan ka soo qaadano muddadii oo ku meel gaarka aan ka baxnay labadii teram hore la soo dhaafay iyo teramkan la isku daro banka dhexe waa furnaa waa shaqeynay switch code wala electronic transfer wala correspondence bank wala waa shaqeynay laakiin haddana ma gaarin in uu soo gudbo oo soo tallaabsado oo xamar ka soo baxo oo ugu horeyntii dhul samareeb yimaado oo meelihii kale ay muxuu ahay fariinta u sii jirto u sii socdo waxaan leeyahay waa horumar aad iyo aad u ballaaran oo mudan in hoggaanka bangiga dhexe lagu bogaadiyo in ay qabteen shaqo muuqata oo la taaban karo sidoo kale shaqaalaha bangiga dhexena sidoo kale ayaan leeyahay ayaguna shaqo wanaagsan aad qabteen intaa ka bacdi hambal yar reer galmudug bangiga ilaashada muxuu isticmaala muxuu ahay xoolaha maxaan ku iraahday sanduuqyada iyo dhulka meelaha ku duugan laga soo bixiyo dawladdu muxuu ahay meelaha qaarkood lacagaha ugu xareysan ama meel u jira ha ka keensatay halkaan maadaama bangiga dhexe aan halkaan oolin waa huba in bangiyada private-ka iyo xawaaladaha iyo meelo kale dawladda galmudug xataa inay lacag u jiraan inta soo aruuriso lacagteeda barkinta agteeda soo dhigato si aanay bangi xamar ku yaallaa kacay ama waxaasma wixiina waa lagu waayay amba loo dhihinba maxuu ahay ilaa idinkiis kani ma kacayo bangi kacaya maaha dawladda Soomaaliya kacday la mid tahay bangiga dhexe kacay haddii la yiraahdo mana kacayso dawladda Soomaaliya hadda bay kor u sii bulaalaysa insha Allah garabkiina Allah galo aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale hambalyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh